Somaliland ciidalahaana tulo baqanaya ma aha ها dhibaatooyin waa jiraan dagaal waa jiraan colaado badan waa jiraan laakiin qaarda in ruuxaya ma aha inta ina weeraraysa waa inanu ka adagnahay waayo cid kasto dagaal lagu soo qaada Somaliland soo ka sano toos iyadu kaligeed qola inoo weerartaa ma jirto dawladda adduunka oo dhan inoogu colaad badani waa dawladda xamar ka dhisan ee Somaliland ma jiri karto قال يا إسلام أدوك ولا قرض على الضروية Somaliland إنما سووا سكر يضع عدو ولا تمو يعني مر أفريقيا كانوا يلتها ولا تصل حكومة يفردي مر ملاك بيو يلتها ما حدنا موسكا يكدك تاي عدو دولتها إما كان مصر بيو يلت ومصر محا أنا قناقري لبها الاسم قبنا يا لبها عد برسوك قبتيا ninkastoo soomaali ma ay yaqaano oo Soomaali oo meel joogo halka dawlad joog qurbad joog dalka Soomaaliland iyo Soomaaliya afka laga hadlo meesha joogtaba laba hal isku ay raaciyo waxa isku ay raacisa Soomaali waan jecelahay oo waan midaynaya oo waa dadkaygii oo waan ka naxaya iyo baali walba shisheeyaan ugu yeeranaya oo waan la dagaalamaya ومركان إيطاليا وحلا مثلا كان Somaliland يقبو Somaliland waxay ku leedahay adiga Masar taadu waxa haysan keena waayo maxaan erayga maxaan orada barbay waa isagu markasta xagga adigu ma ka raacado waa qof qalifsan ma aha waa sheegay sababta leeyahay xamar waxay dagaalaneen toosana dagaalwada oo dalka uu soo galay oo ayna waxba isu tireen iyadoo Mareykan ictiraafsay oo Soomaaliya joogto oo Ruushka ictiraafsay oo ay Afrika oo dhan caawinayso oo ay Carab oo dhan caawinayso oo Masar ka tahay caawinayso oo hub iyo diyaarado iyo xataa kuwa Carabta ka taagay Carabta ay halka joogaan ayaynu haan caad shafrood iyo calacal kaga burugsan xubin go'goonbeedina ma duco igu siiyay ma la bari igu siiyay meenu barinay soo nafeedo ma ina hore maantana wixii waxa ka sokeeya oo baartay miciin moodayo dhagudhigi mayno Somaliland loo baqi maayo dadkeeda maanta waanu soo maray daraf ilaa daraf way ku midaysantahay cid kuma gardarooto cid Somaliland ku soo xadgudubtana waanu isranaho waanu shaqaana waxay raacdataa Somaliland dhexdeeda waxa li wixii ka dhacaa waa caa'ilad Somaliland ilaahdo oo adduunka oo ictiraafsan yahay waxay noqonaysaa wax ay ka wada hadlaan gacanta sheeye soo gasha waa jarayna oo waa la dagaalamay inta waxa raacinaya Somaliland dhiig wadaag bay leedahay xorriyaday wada leedahay dalkay wada leedahay horumarkay wada leedahay hase yeeshee meel walba iyo sabaan walba lama waayo qof ilaahay tusi waayo wanaaga culimadu inta masaajidka waxay ka hadlaysaa inaga waarinayaan nin wanaaga diidan oo ama muraafaqo bixi ama ma ka soo bixi inta soo aayadood iyo xadis ka soo dariiray illa waa helo qof wanaaga hadiya jeer diidan oo balaaya u qaynayso deynaguna mashruuciya ka mid baan oo laga yaabaa dad tirayar ama ashqaas inay taa gasho kuwa horta waxaan leeyahay ilaahay ha soo hadiyay وادتكينيو دعاء كدينا كي ديدنا دينتا جديسي دستوركا جديي ددنمدا جديي qofkii wax baabiinaya afku doonaya ku hadlay oo umada waxyeeleynaya oo wanaaga loogu taag waayo shaydaan watana waxa in faran dhamaanteen inaan iska qabanno oo umada laga qabtay taariikh khasaaro u geysay waxyaalaha qaarkood imika waxaaba soo ifbaxay oo afkan telefoonka wada ku dheereeyo lagu silmay kii shaydaaniga ahaa iyo kii dalkaba hadii habeen loo dhiiba gadi lahaay iska iibsan lahaa iyo kii hadii loo yimaado oo laba qof tiraadaan wanaagsan lagu wareejin lahaa oo dadka noocaas ah oo marka ay baalkan telefoonka la soo galaan afka wanaagsan ku hadla markuu la hadlayo afkiisu wuu macaan yahay qalbigiisa ugu adag baa ku jirta ee ku nicib ku jecel yahay wanaag ku diiday
ayaa laga yaabaaba inuu gaaray halkuu iska qalin lahaa heer uu yidhaahdo ummaddan u sharaxanahay oo waxaan doonayaa dalka hogaamiyo meermer subxaanallahi codkiina idinka oo qof kasta oo Soomaalilaanda oo horumarkeeda iyo midnimadeeda jecel uu Soomaaliland uu idin sameeyahay ila dalka war wadanahay oo qofna qabyaaladii adeer buu yahay ku eegaynin waxaad yeelaysaa qofka dadka sharaxan dalka inuu dumiyo u diyaara oo cadow iyo danta ummadda ka soo horjeedsadeen iska garto codhaasiina qofkii dalka dantiisa hore u soo wada ee Soomaaliland bariya galbeed ku doorayhaadeen ina codkiina siisaan adinka waxaan idinku dardaarayaa inaad labada u fiirsataan codkiisa waayo haddii ay deegaan walba iyagu isku koobaan oo inaga yidhaahdaan dee wada shaqayn kara mayno ma kala nihin haddaynu Soomaaliland nahay idinka iyo annaga cadowgeennu waa wada iyaga labadaasaynu ka horgalaynaa oo aynu doorashada ku galaynaa xisbiga kulmiye wuxuu soo bandhigayaa oo abtirsanayaa dowladihiisa iyo halgankii dalkaba halka uu kaga jiro idin soo bandhigaya qofkii ku qanci waaya la yaabi maayo waxaan leenahay bal hadda midna dhaamo doon dad hayso xisbiga kulmiye wuxuu idin soo bandhigayaa taariikhdu halgankii ku lahaa iyo halkuu kaga jiray qof walba halgankii soo galayna kulmiye waa la saaxiibay oo walaalkii waxay mudleeyay laakiin inaan 40 jir ama 30 jir oo dhexda kaga soo booday oo waqtigu si u yar saaciday oo isagoo qurays garanayo waxa joogay wax ka hor joona aan garanay dabeetana dalka la booday microphone xil aan marka hore si dalaga uu galay ama nasiibna in badan magaciisa la maqlo hebel la yiriyo adeer joog baan ku leeyahay joog uma qalansid waayo مسؤولية ما قاعد كرتين هذا لا ضربة غير لا هذه لو بعض صوت أنا ولا شيء وحي مكافك على قدر وريه أيها النوم والبدر كلام صاري أنا أنت عليه والله إيه صاري أنا دوري فرصة سنة بار ميكروفون يسا حتى تصور تاني أنت هالكا جوكتا أبيا شيء بالغ وين صوت شغالين قاربان أبو واحد أنت هذا هو صور شغال محل يعني نميو شوكا ولا تجرا إلى هو حل قريب نسوا على شوكا وفرصة سنة تصور شوكي إلى هو محل قريب لكن أنت إذا كدوا ذي دونا marka qaranimada saasaynu uga tarayna